haddaa ku cusubta youtube channelkayga subscribe saar, sidoo kaleetin like na taabo, sidoo kaleeti gambaleelkana click si waxaan soo geliya kusoo garan adow barkaatu saaxiibayaal meel walba joogtaan iyo waliba si kasto muuqaalka naga u daawanaysto waxaan ku leenahay maalin wanaagsan haddii Allah subhanahu wa ta'ala karaal noqdo maanta waxaan idin soo gelinayaa barnaamij ku saabsan ama xaqiiqooyin ku saabsan madaxda Afrika iyo waliba madaxda reer galbeedka haddii Allah subhanahu wa ta'ala karaal noqdo madaxda waxaan ku bilaabi doonaa madaxda Afrika waa dad inta badan hawlaha dawladda iyo waliba shacabka inta badan ay gumaadaan waa hantida dawladda iyo waliba hantida gaarka loo leeyahay shacabka aan la ogeyn ayay si xaq darro ama si ixtiraam darro ay ugu tuntaan sidoo kaleeti waxyaabaha ay ka sameynayaan Afrika ayaa ah wax cadaaladda ka baxsan madaxda Afrika waxa laga yaabaa in ay boobaan hantida dawladda waxa laga yaabaa inay musuqmaasuq ku sameeyaan dawladda sidoo kaleeti waxa laga yaabaa dawladda waxa ay leedahay ama hantida guud ee shacabka iyo waliba mid dawladda in ay ka iibsadaan wadamada deriska maaha kaliya markaan ka hadlayno Afrika Soomaaliya balse waxa ogaataa guud ahaan qaaradda Afrika ayaa inta badan ay ka sameeyeen yihiin waxa jira madaxweynayaal dhowr ah oo lagu qabtay arimahaas oo maxkamadda la soo saaray kadibna cadeysteen in ay sameeyeen waxyaabaha ceenka ah markii laga hadlayo Afrika dad baa niyadooda ku soo dhacaysa Soomaaliya weeyaan laakiin waxa ogaataa madaxda Soomaalida kaliya ma ahan isdoomarinta iyo waliba qiyaanada ay sameynayaan in ay tahay madaxda Soomaalida oo kaliya waxa ogaataa wadamada deriska aan la leenahay sida Kenya iyo waliba Ethiopia madaxdooda iyo waliba xildhibaanadoodii sida Soomaalida u dhaqmaan ayay u dhaqmaan hadaysan ka darnayn sidoo kale waxa jira Afrikada bari iyo waliba Afrikada dhexe ayaa ayakana shacabka la iska gumaadaa hantidoodana la boobaa tii dawladana si cadaalad darro loogu dhaqmaa maxaa u diiday madaxda Afrika in ay u dhaqmaan sida madaxda reer galbeedka Ilaahay baa idinku dhaariyay madaxweyne reer galbeed ah ma jiro oo hantida dawladda iyo waliba hantida shacabka in oo si xumaan ah u isticmaalo ama si qalad ah u isticmaalo waxa laga yaabaa madaxda reer galbeedka inay ka baqayaan sharaftoodii iyo waliba maxkamad caalami in la soo koro marka joogto qaaradda Afrika qofba wuxuu jecel yahay inuu si durbaa u noqdo madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama xitaa baarlamaan ama gudoomiye degmo sababtii taas ay uga cararayaan ayaa ah waxa laga yaabaa hal sano ay haysid xilkaas inaad noqotid taajir ama qof rich ah ama qof milyaneer ah waxa uu diiday madaxda Afrika joogta kaliya maaha Soomaaliya dhammaan guud ahaan qaaradda Afrika madaxda ku nool sida reer galbeed ku dhaqmayaan inay u dhaqmaan tusaale yar ayaan kaga soo qabanayaa wadamada Yurub madaxweyne kasta wuxuu ka baqaa shacabka sidoo kale wuxuu ka baqaa maxkamadaha ku yaala dalka sidoo kale wuxuu ka baqaa in kiis lagu soo rogo hadii lacag ay dawladda ama shacabka ay leedahay si khaldan oo isticmaalo sidoo kale waxa jira qaaradda Canada ama Mareykanka ama Australia waxa jira madaxda halka madaxweyne ka ama ra'iisul wasaare ama gudoomiye baarlamaan ama wax xulka kuma xisaabtamaan ee lacagta ay dhacayaan ee waxay ku xisaabtamaan lacagta mushaarkooda u soo dhacaysa waxa laga yaabaa madaxweynayaasha reer galbeedka inay siman yihiin shacabkii ayaka laakiin maanta hadii ay u baahatay madaxweyne Afrikaan ah adigana dalka Afrika ama u dhalatay qaaradda Afrika ama wadanka madaxweynaha markaa talada ka hayo inaad la kulantid lagugu xijeenayo qabiil lagugu xijeenayo lacag inaad bixisid inta waxa si dheer Afrika dawladaha ka dhisan ee qaaradda Afrika shacabkooda way gumaadaan sidoo kaleeti in qabiilla iyo waliba dhibaatooyin fara badan loo geysto ayaa halka ka dhacdo waxa uu diiday in sida reer galbeedka u dhaqmayaan ay u dhaqmaan madaxda qaaradda Afrika barnaamijkan ugama sameeynin inaan ku dacaydeynayo Soomaaliya balse waxaan u sheegayaa dhammaan guud ahaan inta ay daabato ama inta ay dhageysato waxaan u sheegayaa in aysan ahayn kaliya Afrika markii laga hadlayo ee Soomaali kaliya tahay waxa jira wadamo annaka naga liito sida madaxdeena annaka u aragno in ay waxyaabo qaldan sameynayaan dad ka sii daran in ay jiraan oo ka soo jeeda qaaradda Afrika ayaa jiro sida wada ogtihiin dawladda Kenya waa wadanka koowaad ee adduunka ugu musuqmaasuq badan sharciga Kenya qaarkood waxa dhigaya in micnaha qofka hadii la qabto lacag laga qaadanayo waa sida wada ogtihiin Soomaalida ku nool guud ahaan caalamka boqolkiiba 70 waxay soo mareen Kenya garan magaalada Nairobi nolosha Nairobina way og yihiin
musuqmaasuqa ka jira Nairobi kama jiro guud ahaan caalamka. Soomaaliya meesan soo marin ama weli maanan arag ama maanan maqal barnaamij ku saabsan qof haddii la qabto lacag laga qaadanayo markii ururo argagixisay lagu tilmaamo mar laga soo tago. oo ku maasan tahay markii ugu horreysay haddii ay tahay YouTube channelkayga aad soo booqatid fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe aad saartid share like comment aad ku qabatid barnaamijkan haddii aad ka heshayna waxaan kaa codsanayaa in mar kale asxaabtaada la wadaagtid oo ku maasan tahay mar kale saaxiibkiin jaamacnin baa soo idin leh sidaa iyo nabadgelyo kulanti wacan oo xiise leh mar kale.